dowladda Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqday in la xadidin hal mar wax ka badan la guto cumrada sanadkiiba. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu hortagayo ciriiriga inta lagu jiro bisha barakaysana. Wasaaradda Xajka iyo Cumrada ayaa inta ku dartay in shakhsiyaadka hadda loo ogolaan doono oo keliya inay hal mar gutaan cumrada inta lagu guda jiro bisha Ramadaan si ay gacan uga geysato maareynta dadka isugu soo baxaya masjidka xaramka ee Makka. Hindisaha wasaaradda waxa uu higsanayaa in la yareeyo saxmadda iyo in la hubiyo in dadka oo dhan ay si siman u gutaan cumrada iyo in si hufan loo maareeyo xilliyada ay dadka ugu badan isu soo baxayaana si loo dhaqangeliyo siyaasadan. Mareegta nusug oo ah barta elektarooniga ee dowladda Sacuudiga ee nidaamka cumrada ayaa u soo bandhigi doonta fariin diidma isticmaalayaasha isku daya inay codsadaan ogolaanshaha cumrada labaada. Fariinta ayaa caddaynaysa in gudashada cumrada oo sidoo kale loo yaqaano xajka yar aan la ogoleen wax ka badan hal mar inta lagu guda jiro bisha Ramadaan si ay dadka kale ugu suurto gasho inay ka qayb qaataan oo ay iyaguna gutaan acmaasha barakaysana. Muddooyinkii u dambeeyey dalka Sacuudiga ayaa soo bandhigayay agabyo kala duwan oo lagu talagalay dadka muslimiinta ah ee ajaanibka ay doonayeen inay cumrada ku gutaan dalkaasi. Shakhsiyaadka sita noocyada kala duwan ee fiisaha gelitaanka oo ay ku jiraan socdaallada shakhsi ahaan, booqasho iyo fiisaha dalxiiska waxaa loo ogol yahay inay gutaan cumrada oo ay booqdaan al-Rawda iyo al-Shariifa oo ah meesha uu ku yaallo qabriga nebiga sallallahu calayhi wasallam ee masjidka nebiga ee Madiina kadib marka ay qabsadaan balan elektarooniga. Intaa waxaa dheer, muddada fiisaha cumrada ayaa laga dhigay 30 maalmood ilaa 90 maalmood si xujaydu muddo dheer ugu sii sugnaan karaan dalka. 8 milyan oo qof oo cumro doon ah ayaa ilaa hadda ka qayb qaatay cibaadada barakaysan ee Ramadaana sida lagu sheegay tirakoobkii ugu dambeeyey ee wasaaradda xajka iyo cumrada, iyadoo bisha barakaysan ee Ramadaan ay sii gelayso dhammaadka nuskii labaad. Madiina waxaa si qasad ah u soo booqanaya dadka cumrada ama xajka u imanaya magaalada barakaysan ee Makka. Warbixin lagu daabacay mareegta Sacuudi Magazine oo soo xiganaysa dowladda Sacuudiga ayaa leh maamulka Sacuudiga wuxuu u heelan yahay bixinta adeegyo dhammaystiran si loo xaqiijiyo in xujaydu acmooshooda u guteen si dhammaystiran ah. Safarka xujay badan ayaa ka bilowda Madiina, masjidka Miiqaad Dulxufayn, halkaas oo ay kusoo tukadaan 2 ragcadood ka hor inta aysan u anbabixin Makka. Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in 8,235,680 oo cumraystayaal ay soo galeen dalka tan iyo bilowgii jiilaalkana. 7,259,504 ka mid ayaa dhammaystay cumradoodii, waxaana hadda dalka ku sugan ku dhowaad 976,176 qof oo soo booqday ama cumro u yimid. Warbixinta wasaaradda xajka iyo cumrada ayaa iftiimisay qaabka ay xujaydu ugu safri karaan. Socdaalka dhulka ayaa noqday kii ugu badnaa, waxaana ku yimid 980,556. waxaa ku xiga cirka oo isaguna ay ku yimaadeen 700,983 qof, halka badda ay ku yimaadeen 54,141 cumradoona oo doortay inay maraan waddada badda. waxaa xusid mudan in garoonka caalamiga ah ee Amiir Maxamed bin Casiis laga diiwaangeliyey 1,919,971 oo soo degay iyo 1,437,849 oo ka dhoofay, taasoo ka dhigan celcelis ahaan dhaqdhaqaaqii maalinlaha ah oo gaaraya 6,579 soo degay iyo 5,613 ka dhoofay oo cumraystayaal ah.